يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. su-aasha sidee ayaan uga ilaalin karnaa caruurteena cudurrada dhimirka ku dhaca? Si ay noogu suura gasho in caruurteena aan ka ilaalino ama aan ka hortagno cudurradan dhimirka ku dhaca, waxaa muhiim ah in aynu wax ka fahamno caafimaadka hooyada iyo tallaabooyinka ku habboon ooy hooyadu qaadi karto. tallaabooyinkaas oo ka soo bilaabanaya waxaa loogu yeero preconception, oo ah inta aysan hooyada ama haweenka uurka qaadin. waxaa jirta tallaabooyin looga baahan yahay inay qaado intaysan uurka qaadin. waxaa jirta tallaabooyin kale oo looga baahan yahay haweenka in ay qaado marka ay uurka leedahay, ha noqoto 3 bilood ee ugu horeysa ee uurka, 3 ku xigta, ama 3 bilood ee ugu dambeysa first, second and the third trimester, ilaa cunuga uu kasoo dhasho. marka aan usoo laabto uurka ka hor, waa waqtiga ugu muhiimsan ee la ogaan karo haddii ay jireen jirooyin kale oo hore usii jiray. waxaa jiro waxyaalo loo baahan yahay in tixgelin la siiyo, matalan tallaalka iyo medical check-upka, oo ah waxyaabaha mateli kara tallaabada ugu horeysa in ay hooyadu qaada ay tahay. For example, hooyada intaysan uurka qaadin, haddii ay update garayso tallaalkeeda, oy ogaato tallaalo ka maqnaa oo la tallaalo, waa in ay dib u dhigtaa, isku daydaa inay dib u dhigto inay uur qaato muddo about 1 bil ah. talabaad, inay samayso oo visitka koowaad ay ku samayso medical check-up, total medical check-up, oo ah inay ogaato hadday jireen jirooyin hore ama waxyaabo hore oo aysan la socon, si markaas caafimaadkeeda jirka iyo caafimaadkeeda maskaxdaba ay kor ugu soo qaado. waayo hooyo caafimaad qabta ayaa ubad caafimaad qabta dhasha koriirsana. marka aan ogaano caafimaadka hooyada jirka iyo caafimaadka maskaxda hooyada, ama medical conditionkeeda iyo xaaladeeda, waxyaalaha sida cad in loola socdo u baahan waxaa ka mid ah culayska jirkeeda oo loo yaqaano body mass index ama BMI, inuu normal yahay iyo in uu normal ahayn. blood pressurekeeda, for example, in uu normal yahay iyo inay hypertension iyo something ay jiraan. diabetiga, inay diabetic qabto ama ay ku dhowdahay, iyo in kale. 3daas shay ee hadda aan sheegay waa 3 shay oo la xiriira qaab nololeedka ay ku nooshahay hooyada markaas. qaab nololeedkana waa qaabada qofka u nool yahay, of course, waxayna ku xiran tahay waxa qofku uu aaminsan yahay, wuxuu qofku ka aaminsan yahay nolosha guud ahaan, iyo sida naftaada aad u xukumi kartid ama aad u kontrooli kartid. tusaale ahaan, marka qaab nololeedka nolosha laga hadlayo, waxaa ku garan kartaa qaab nololeedka noloshaada inuu qaab nololeed wanaagsan yahay. waxaa tixgelin gaara siinaysaa waxyaabaha ku saabsan don't and do, or do and don'ts.
for example tusaale ahaan do exercise dhakhaatiirta inta badan waxay dhahaan do exercise eat nutrition food so that's what don't waxaa ka mid ah ha cunin maxaa la yidhahdaa junky food don't eat junky food don't smoke waxyaabaha marka hooyada usoo galaya listigan don't and do ay ka mid tahayna dhakhtarka shaqadiisa inuu kuu sheego waxyaabaha dhibaato kuu keenaya inaad ka hortagto oodan samaynin waxyaabaha kuu sahlaya caafimaadkaagana inaad samayso so waxyaabaha hooyada inay ka fogaato loo baahan yahay waxaa ka mid a inay ka fogaato tobacco iyo meesha lagu cabaayo iyo productiga tubaakada ka imaanayso oo dhan ama sigaar ha noqoto ama se shiisha ama huka bahasha loo yaqaan ha noqoto sidoo kale alcohol inta badan dadka muslimka alcohol ma isticmaalaan laakiin haddana waxaa dhici karta inuu qofka isticmaalo cunto ay ku jirto marka alcoholshan inuu iska ilaaliyo iyo cuntada ay ku jirto alcoholsha drugiska haddaa usoo laabano drugis waxaa la dhahaa wax kasta oo pharmaceutical ah oo aan isticmaalno ama medical ha noqoto ama ha noqdaan waxyaabaha kale ee dadka isticmaalaan all drugs waxaa dhici karta hooyada inay daawo hore u qaadanaysay daawadii ay hore u qaadanaysay waxaa wanaagsan inay dhakhtarkeeda kala tashato waayo waxaa jirta daawooyin badan oo cudurro kale loo qaato oo u daran uurka qaadistiisa iyo ilmaha uurka galay daawooyinkaas waxaa ka mid ah ACE inhibitor oo loo isticmaalo hypertensionka ama vitaminada qaar ka mid ah oo loo baahan yahay in qofku uu ilaa iyo xad ka qaato sida multivitaminka inuu ilaa xad qofku uu ka qaato xitaa waxaa jirta daawooyin kale oo dhakhaatiirta ay recommend gareeyaan inta badan sida folic acid oo u wanaagsan haweenka intaysan uurka qaadin iyo markay uurka leedahay but still waxay hooyadu u baahan tahay in ay dhakhtarkeeda kala tashato xadka ay uga baahan tahay waxaa jirta iyadana daawo kale oo hadda aad loo xayeysiiyo xagga pharmaceuticalka taasoo ah ay kusoo koobaan DHA dadka intiisa badan ay u yaqaanaan omega 3 it's a fatty acid substance daawooyinkaasoo dhan qofka inuu qaato hadduu rabo waxaa wanaagsan in uu dhakhtarkiisa kala tashto especially markay haweenka rabto in ay maxaa la yidhahdaa intaysan uurka qaadin ka hor iyo markay uurka leedahay si dosageka daawooyinkaas dhakhtarka uu ugu xadayo waxaa ogaataa inaad naftaada adiga mas-uul ka tahay naftaada iyo haddaa uur qaada ilmaha kugu jira inaad mas-uul ka tahay labadaasba haddaa usoo laabta marka pharmaceuticalka hadda waxaa aragnay daawooyinka qaarkood inay banaanka yaalaan shaqada pharmaceuticalkana waa marketing waxay ku dadaalaan inay daawada suuqa keenaan banaanka usoo saaraan daawo badan laga gato si ay maaliyad badan ku sameeyaan so naftaada ha u dayicin mar walba waxaa wanaagsan inaad dhakhtarkaaga la tashato haddaa usoo laabta marka barnaamijkeenii aan ku dhex jirnay oo hadda intii dhan waxaan kasoo hadlaynay biological caafimaadka hooyada jir ahaan iyo caafimaadka hooyada maskax ahaan intaas laguma soo koobi karo waxaa jira faktaro badan oo in la fiiriyo la rabo oo ay ka mid tahay maxaa la yirahdaa psychological ahaan ama cilmi nafsi ahaan oo iyadana maskaxda qayb ka qaadata sida hooyada oo loo baahan yahay inay ilaaliso moodkeeda oo loo baahan yahay hooyada inay iska ilaaliso wixii keeni kara stress waayo stresska markuu imaado qofka dheecaana ayuu soo saaraa ama hormoonadaasna waxay waxyeello gaarsiiyaan fitaska ama cunuga caloosha ku jira waxaa kaloo muhiim ah oo muhiimadda inaan siina ay tahay ma aha keliya markaan caafimaad ka hadlayna inaan ka hadalno jirka iyo mindka inaan ka hadalno islaam ahaan
kuwaas waa kuwaan kala midnahay adduunka oo dhan laakiin islaam ahaan waxaan mar walba xusnaa spiritualkeena iyo diinteenna oo ka muhiimsan 100% intaan kasoo hadlay oo dhan marka qofka waa inuu iyadana ijeegaraysaa caafimaadkeeda xagga caqiidada ah iyo xagga iimaanka oo qofka uu isjeegarayaa how much aad allahu subxaanahu watacaala aad ku xiran tahay iyo how much aad diintaada falow garaysaa wixii maxaa la yidhahdaa diinta ku saabsan wanaagsan in la sameeyaa insha allah taasna gooni ayaan oga hadli doonaa mawduucaana maadaama uu ballaaran yahay waxaan rabaa inaan usii gudbo waxyaabaha aan wax ka qaban karno xagga ilmaha dhashay si maskaxdooda aysan dhibaato ugu dhicin oo ahayd su-aashii markii hore aan ka duulaynay oo halkaas aan fokis garayno aan kusoo koobno arrinteena marka waxaan uga gudbi doonaa arrintaas insha allah waxyaabaha kale aan meelaha ka taataabteen aan kusoo laaban doonaa sida ugu fiican ee aad ku yareyn karto ama isaga ilaalin karto stresska waxaa waaye inaad iska ilaaliso ama iska filtarayso oo iska shaandhayso fikradaha bannaanka kaaga imaanayo guud ahaan iyo qaar laga yaabo kuwaas inay ka dhashaan oo adiga inay kaa imaadaan laga yaabo sababtoo ah fikradahan ku imaanayo waxay degaan niyaddana ama qalbiga dadka ay u yaqaanaan dan waxay noqdaan qayb ka mid ah dhaqankaaga oo bannaanka kaaga soo baxo oo ah waxaa loo yaqaano personality ama waxaa loo yaqaano dadka qaarkiisna ay u yaqaanaan qayb ka mid ah qaab nololeedka noloshaada marka sida ugu wanaagsan ee qofku uu isaga caawin karo oo uu isaga celin karo waxyaabahaas stresska keena ee ugu wanaagsan waa in uu ku xirnaado maxaa la yidhaahdaa raacana sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam isku dayan inuu ku dhaqmo intii karaankiisa aayadaha qur'aanka kariimka allahu subxaanahu watacaala qur'aanku wuu noogu sheegay qiimaha ay leedahay iyo macaaniga ugu weyn ay leedahay in aan qalbigeenna ku ilaalino si nadiif ah xadiis haddaan xasuusto waxaa jira rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu yiri waxaa nagu jiro cad hiliba cad jirkeenna ku jira oo haddii uu xumaada jirkoo dhan uu xumaanayo xubintaas hadday xumaato jirkoo dhan uu xumaanayo fikradeenna ay xumaanayso jirkeenna iyo fikirkeenna iyo wax walba ay xumaanayaan haddii xubintaas ama cadkaas u ficnaadana wax walbo ay noo ficnaanaya xataa yacni diinteenna yaa ku jirta aakiradeenna iyo adduunkeenna yaa ku jira cadkaasna culimmada waxay tiri waa qalbiga ama wadnaha dadka qaarkiis u yaqaanaan qur'aankana allahu subxaanahu watacaala qiimaha uu leeyahay qalbiga saliimka ah qalbiga wanaagsan qalbiga ilaahay ku xiran allahu subxaanahu watacaala wuu noo sheegay